waxaan ku dhahay marka aan mool ku hadalsay waxaan maqlay in aad tiri ninka ama gabadha maxaad ka waday waxa uu dhahay anigu waxaan ogaaday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سو دواada saaxiibayaal magacaygu waa Fahad waxaan rabaa inaan idiga sheekeeyo qisada qaybtii labaad inta aanan bilaabin qisada qaybta labaad waxaan ka codsanayaa inaad kanaalka subscribe saarto si aan u soo badin muuqaalada noocan oo kala haddii aad ka heshaan like saar una si share asxaabtaada si aan u helno saaxiib wanaagsan sida adiga oo kale qisada qaybtii koowaad waxa ku soo aragteen aniga oo wacay sixroolay isla markaana uu sheegay in habeenka arooskayga la sixray xaaskayguna ay daawada uurka laga hortago qarsanaysa intaas muddo isla markaas waxaan isku waafaqnay inuu sixirkayga furo ana lacagtiisa aan siiyo waxa kale oo ii cadeeyay inta uu moobilka dhigin inuu jiro nin dariskayga ah kaasoo sira fara badan aniga haya kaasina waxa la dhahaa Saalax anigu waqtigaas waxaan ka fikirayay see Saalax la kulmi kartaa maadaama wax xiriir wanaagsan idiga dhaxayn aad ayaan uga fikirayay su'aashaas waqtigu waa habeenimada saqda dhexe anigu isla markaas waxaan u soo dhaqaajiyay odaygii Saalax ahaa isla markaana waxaan suu kari waayay inta subax laga gaarayo odaygii Saalax ayaan albaabka ku qaraacay isla markaasna waa uu iga furay isagoo naxsan waxa uu dhahay maxaa jira sida wax u jiraan xilligan maxaa ku keenay anigu waxaan ku dhahay waa salaaman tahay waxaan rabaa inaan heshiino maadaama aan nahay jaarkana waxaa laga rabaa daris wanaag isku naxariisasho iyo iska warhayn taasna waxay nagu dhiirigelinaysaa diinteena islaamka odaygii Saalax hadalka ayuu iga soo dhaxgalay waxa uu dhahay adigu xilimaad isbedeshay waxaan filayaa inaad cabitaanka iska badisay isla waqtigana aniga adiga xanaajin rabto anu isla markaas waxaan iska dhagay sidii qof aan maqlayn oo kale waxaan ku dhahay waxaan rabaa maanta wixii ka dambeeyay inaan heshiino heshiis iyo saaxiibtino miyaa dhahday waxaan ku dhahay Saalax habeen dambe waxaan rabaa inaan wada cashayno waxa uu dhahay sabab la'aan ayaan rabaa inaan cashayno waxaan u qaataa daris wanaag iyo kalgacayl waxa uu dhahay anigu wax sharaf kaama rabo wax wanaag iyo naxariistoona kaama rabo ee ma jirtaa waxaad weydiinayso waxa uu ku dhahay adiga iyo familygaaga ma rabno waxaan rabnaa in aad naga fogaataan anigu isla markaas waxaan is weydiiyay dadka oo dhan san maxay igu necab yihiin xaaskaaga dhaqan xumeeda ayaa waxaas oo dhan u sababa waxaan weydiiyay sir muhiim ah aniga igu saabsan inuu hayo isaguna waa u naxay hadalkayga inuu la yaabay waxa uu dhahay a'uudu billaahi minash shaytaanir rajiim albaabka ayuuna soo xidhay anigu isla markaas waxaan xaqiiqsaday inuu sixroolo hadalkiisu run yahay Saalaxna uu sir aad u muhiim iga hayo taasoo halis ku ah noloshayda todobadii subaxnimo waxaan u soo kacay si caadada ahayd in aan shaqadayda aado anigoo isku diyaarinaya xilliga in aan hawlmaalmeedkida guda galo isla waqtigaas waxaa si keys u soo qaraacay muraayada gaariga Saalax anigu waan yaabay waxaan dhahay xilligan muxuu ka rabaa isla markaas muraayada gaariga ayaan ka dajiyay waxaan dhahay Saalax waa salaaman tahay maxay tahay subaxna hore igu soo kalahday Saalax ima uusan jawaabin waxa uu si degdeg u dhahay xalay hurdo wayga ima weyday waxaan rabaa inaan sir muhiim ku sheego ka soo deg gaariga isla markaas waan naxay anigu waxaan xasuustay hadalkii sixroolaha kaasoo ahaa dariskaagu wuxuu hayaa sir muhiim ah taasoo noloshaada halis ku ah waxaan soo ristaagnay gurigayga Saalax waxa uu dhahay Fahado waxaan ogahay sir aad muhiim ah laakiinse waxaan rabaa su'aashaan ku weydiin doono inaad si sax ah iga jawaabto waxaan ku dhahay Saalax soo dhawow wax walba kaaga jawaabi doonaa waxa uu dhahay sideed ku ogaatay in aanu sir muhiim hayo isla markaas waxaan ku dhahay aniga oo kaliya ayaa iska dareemay su'aashaasna waan ku weydiiyay Saalax ma aysan cajabin jawaabteedu isla markaasna waxa uu dhahay sirta aan haya waxay u baahan tahay maskax degan iyo caqli dheer si aan dulmi iyo xadgudub qofna noloshiisa aan ugu sameeynin anigu isla markaas hadalkaan maqlay cabsida ayaa aad ugu sii badatay waxa uu dhahay Fahad ma jira cid soo boqoto maalintii kuwaasoo familiga ah ama qaraabada ama asxaabtada xitaa anigu waxaan dhahay maya familigayga iyo familiga xaaskaygu magaalo kale ay degan yihiin taasoo aad nooga fog mana garanayo cidna soo boqoto maalin kasta Fahad si wanaagsan ii dhageyso maalin kasta
xilliga aad shaqo tagto saacad kadib waxaa gurigaaga yimaada gaadhigaasna waxaa ka soo dega haweenaydaas 2 saac kadib haddana gaadhiga ayaa u yimaada gurigana waa u ka qaadaa. aniga markuu waxaas dhahay waan yaabay, waxaana isweydiiyey maxay tahay sababtaas, maxay tahay qofka xilliga imanaya maalin kasta, xaaskaagu maxay kugu sheegi weyday qofkan dumarka ee maalin kasta yimaada. waan ku qasbanahay inaan guriga ku laabto, isla markaasna su'aasha aan weydiiyo maxaad iga qarisay. haddana waxaas dhahay maya xaaskaygu waa beenley, waxbana kuu sheegi mayso. anigu waqtigaas waxaan ku fikiray in aan shaqada aado, isla markaana saacad kadib aan soo noqdo si aan sirtoo dhan u fashiliyo. shaqadii ayaan aaday, saaxiibka Naasir ayaan raadiyey, waxaanan ka codsaday inuu gaadhigiisa ii dhiibo si aanay cidna ayna ii fahmin, gurigana aan ugu laabto. si kadiisa waxaa ii soo wacay ninkii sixiroolaha ahaa, waxaanas dhahay muxuu kaa soo wacay xilligan ninka nacaska ahaa, waa uba ku bartee. waxa ugu dhahay isagoo qoslaya Fahad, ma heshay sirtii deriskaaga uu kaa hayay? anigu waxaan dhahay haa waan helay, laakiinse macquul ma tahay inaad ii sharaxdo? maya wuxuu dhahay taasi waa lama filaan, waxaan lagaa rabay inaad adigu soo ogaato. moobilkana waa ugu jiray. anigu markaas waxaan isweydiiyey su'aalo fara badan, maskaxdayda aad ayay u xanuunisay. si degdega waxaan u soo qaatay gaadhigii saaxiibkay Naasir, isla markaas waxaan ku wajahanay guriga. waxaan rabaa inaan soo ogaado sirta intaasoo sano laga soo qarinayay. waxaan hor dhigtay gaadhigii gurigayga aniga oo meel fog ka fiirinaya, dushana kala socda inuu gaadhigii meesha yimaado maalin kasta iman jiray. isla waqtigaas waxaa yimaaday gaadhigii maalin kasta halkan dhigi jiray gabadha, waxaana ka soo degtay haweeney dhar madow xidhan. anigu isla markaas su'aalo fara badan ayaa isweydiinayay. waxaas lahaa gudaha ma u gashaa aqalka, laakiinse waxaas dhacay mushkilad bilay dhacdaa, armay noqotaa xaaskaaga saaxiibadeed iyaduna isla saa ay kaaga qarisay. su'aal aad u fara badan ayaa maskaxdayda ka dhex guuxaya waqtigaas. waxaan dhahay khaladkani ma aha mid laga aamusi karo. waxaan helay fikrad wanaagsan, waxaana xasuustay Saalax sow ma dhahin gaadhigan soo qaada maalin kasta waa isla gaadhigii uun. waxaan isweydiiyey maxaad u dabageli weyday ninka gaadhiga wadaa, isla markaasna waxaan ka daba dhaqaajiyey ninkii gaadhiga waday. waan daba socday ilaa uu ka soo gaadhay meel cuntada lagu cuno. isla markaas waan ka soo dabagalay. ninku wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah, isla markaasna waxa uu dalbaday cunto. anigu waxaan fadhiyay miiska ku xigay isaga, dusha ayaana kala socday sheekadiisa oo dhan si aan u ogaado qisada ku duugan haweeneyda maalin kasta gurigayga timaada. moobilkiisa ayaa soo dhacay, waxauna bilaabay hadal. anigu waxaas dhaha wuxuu la hadlaya asxaabtiisa, waxauna dhahay wax walba si wanaagsan ayay u socdaan, waxaan sugayaa inay ii yimaadaan ninka ama gabadha. anigu isla markaas waan naxay, waxaan dhahay muxuu ka wadaa ninka ama gabadha? waxauna dhahay waxa uu xidhan yahay dhar madow, laakiinse annaga waxay nagama dhexeeyaan, keliya heshiiskii waa lacag fara badan. anigu waqtigaas waxaan u dulqaadan waayay hadalkiisa, waxaana qabtay ninkii. waxaan ku dhahay yuu yahay qofkaada maalin kasta guriga geyso? waxau dhahay adigu yaa tahay? anigu waxaan ku dhahay waxaan ahay ninka guriga iska leh, aad maalin walba qofka geyso. ii sheeg yuu yahay qofkaasi? isagoo isla waqtigaas aad ayuu u naxay. isla markaas dadkii maqaaxida fadhiya oo dhan ayaana soo wada fiiriyay dagaalka naga dhexeeyey. dibadda ayaan u soo baxnay, gaadhiga agtiisa ayaan soo istaagnay. waxaana ku dhahay ii sheeg haweeneyda aad maalinba guriga geyso sirta ka dambaysa, mise waxaad rabtaa inaan booliska waco hadda? wuxuu dhahay maya anigu saaxiiba waxaan ahay darawal, laakiinse anigu waxba kalama socdo sirta ka dambaysa. maalmo ka hor waxaa ii yimaada nin kaasoo igula heshiiyey inuu lacag fara badan ii siinayo, isla markaasna aan maalin walba geeyo gurigaas. waxa ugu dhahay saacaddaas ayaad ii imanaysaa, saacaddana waad iga soo qaadaysaa guriga. anigu waxaan dhahay yuu yahay ninkaasi? waxa uu dhahay anigu ninkaas waxaan is aragnay oo keliya maalintaan heshiinaynay, dibna iskumaanaan arag. haye halkeed ka soo qaadaa markaas haweeneydan aad maalin walba guriga keento? waxau dhahay anigu walaalow wallaahi kama soo qaado guri ay leedahay, laakiinse maalin kasta waxaan ka soo qaadaa suuqaasi waa mid aad u weyn. waxaan ku dhahay marka aad mobil ku hadlaysay waxaan maqlay in aad tiri ninka ama gabadha, maxaad ka waday? waxau dhahay anigu waxaan ogaaday gabadhani inaysan ahayn gabadh, laakiinse uu yahay nin dharka dumarka soo xidhay. isla markaas hadalkiisaasi aad ayaan uga naxay. waxaan ku dhahay sideed ku ogaatay inuu nin yahay? waxau dhahay waxay diidaysa iyadu in ay gaali ku dhex hadasho, sidoo kale waxaan arkay qacanteedu inay tahay qacan rag. marar badan ayaan arkay iyadoo dabayshu ka qaadaysa indhashareerka, isla markaasna wejigiisuu nin yahay. anigu waxaan ku dhahay maxaad askarta ugu sheegi weyday? Fahad, waxaan ka cabsaday inay askartu rumaysan waayaan, waxaanan diidaa inaan asraaqdeeda iska gooyo.
isla markaas anigu aadayaan u xanaaqay waxaana ka fikirayay waxaan samayn doono sidii aan sirta ku soo ogaan doono maxay tahay ciqaabtan dunida taalla xaaskaagu maxaa aysan kugu samaynaysaa run-aantii waxaad tahay qof muugan waa dulman tahay halkaas ayaan ku daynayaa saaxiibayaal qisadeeda qaybtii labaad haddii aad ka heshay qisadan leegta saar fidyuga si aan u soo badino qaybaha kale haddii aadan weli kanaal ku soo birin waxaan rajaynayaa inaad ku soo biri doonto isla markaana asxaabtada u sii sharagelin doonto qisadan qaybteeda saddexaad inta aan ku kulmayno waxaan idiga tegayaa sidaas iyo ammaano allah